madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilay sidoo kalena casho kula yeeshay la taliyaha amniga qaranka ee dalka Imaaraadka Carabta Sheikh Tahnan bin Sayed Al Nahyan intii uu kulankan socday oo ay goobjoogayaal ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo saraakiil kale waxa la sheegay in looga hadlay xoojinta iskaashiga labada dhinac oo ay ku jirto ballaarinta ganacsiga iyo xaaladda bariga dhexe. Trump siyaasadda wuxuu ka doorbidayaa xilligan ganacsiga soo dhaweynta uu sameeyay Sheikh Tahnan bin Sayed Al Nahyan waxay ahayd mid cajiib ah xilligii uu xafiiska yimi ilaa haddana wax soo dhaweyn ah uma sameyn aqalka cad. Trump dib u doorashadiisii soo dhaweyn heerkan gaarsiisan uma sameyn hogaamiyaasha sare ee reer galbeedka iyo xitaa kuwa Afrika. duqeymaha xasuuqa ee Israa'iil ka wado Gaza ayaa maalintii labaad si joogto ah u socda iyadoo goob kasta oo ka tirsan marinka Gaza ay ku dhacayaan bambooyin. Diyaaradaha Israa'iil ayaa 10 ruux ku dilay duqeynta balse dhaawaca ugu daran waa mid ka imaanaya cisbitaalada Gaza oo si isku mid ah u sheegaya inaysan lahayn awood ay daryeel caafimaad ugu fidiyaan dhaawacyada soo gaaray cisbitaalada kadib markii daawooyinka iyo qalabka caafimaad ay Israa'iil la beegsatay duqeyn taas oo meesha ka saartay bukaanada in la caawiyo waxaana daqiiqad walba geeriyoonaya qof dhaawaca sida ay warbaahinta ku warantay. Xaaladda waxay dhalisay in Xamaas ay ku celceliso baaq ku aadan in lagu cadaadiyo Mareykanka iyo Israa'iil inay joojiyaan xasuuqa ay ka wadaan Gaza oo ay ixtiraamaan heshiiskii xabad joojinta dibna loogu laabto miiska wada hadallada. La taliyaha warfaafinta xafiiska siyaasadda Xamaas Tehran Al-Non waxa uu Al Jazeera u sheegay in looga baahan yahay dhexdhexaadiyaasha wadamada Carabta, dalalka Islaamka iyo dunida xorta ah inay u istaagaan joojinta xasuuqa ka socda Gaza oo uu ku tilmaamay Netanyahu inuu ka leeyahay ujeedo siyaasadeed taas uu doonayo inuu kursiga ku sii joogo iyo inuu xubnaha midigta fog ku soo celiyo xukunka. goobo kala duwan oo ka tirsan dhulka ay maamulaan Xuutiyiinta dalka Yemen ayuu Mareykanka ku qaaday weeraro taxane ah oo ay ku jiraan duqeymo ka dhacay gobolada Sacda iyo Xaja. wakaaladda wararka Saba ee Xuutiyiinta ay maamusho ayaa ku warantay in duqeymahan la beegsaday deegaanada Daqiya ee degmada Majsah oo ka tirsan gobolka Sacda. magaalada Sacda waa saldhigga ugu weyn ee kooxda Xuutiyiinta waxayna ku taalaa meel ku dhow xuduudka Sacuudiga waana sababta duqeynta loola beegsaday. Mareykanka ayaa la sheegay inuu ka careysan yahay duqeyntii kooxda Xuutiyiinta ay ku qaadeen markabkiisa diyaaradaha xambaare ee ciidanka Mareykanka iyo maraakiib kale oo xulufala ah. Xuutiyiinta kaliya ma fulin argoosi ku aadan weerarada ka dhacay Yemen ee sidoo kale waxay weerareen Israa'iil si ay ugu argudaan Falastiiniyiinta wuxuuna ku celceliyay Yaxya Sariic inay weeraradan sii wadi doonaan ilaa inta ay Israa'iil joojinayso duulaanka ay ku qaaday Gaza. Imaaraadka Carabta ayaa cadaadis xooggan ku saaray maamulka madaxweyne Donald Trump inuu meesha ka saaro qorshaha Masar u dejisay dib u dhiska Gaza kaasoo ay horey u ansixiyeen wadamada jaamacadda Carabta sida ay mas'uuliyiinta Mareykanka iyo Masar u sheegeen Middle East Eye. khilaafka ku saabsan arrintan ayaa sii xoogeysanaya iyadoo diblomaasiyiinta Mareykanku ka walaacsan yihiin inuu dhaawaco danaha Washington iyo gobolka. khilaafkan wuxuu sidoo kale ka turjumayaa tartanka ka dhex jira wadamada Carabta ee ku saabsan cidda hogaamin doonta maamulka iyo dib u dhiska mustaqbalka Gaza iyo khilaafka fikirka ku saabsan ee heerka saameynta kooxda Xamaas ay ku yeelan doonto.